geesta kalena jabhad ka soo horjeeda Muuse Biixi ayaa ka dilaacday gobolka Awdal. xogo kala duwan oo aan helin ayaa sheegaya in jabhad cusub oo ka soo horjeeda maamulka Somaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay ka dilaacday deegaanka Dila ee gobolka Awdal. jabhadan ayaa waxna loo xaqiijiyay inay gabaad ka dhiganayso deegaanadaasi, kuwaas oo haatan wada dad urursi iyo dardargelin dagaal ka dhan ah xukuumadda Biixi sida ay warbaahinta ogaatay. jabhadan oo wali si rasmi ah aan loo ogeyn magaca ay halku dhiga ay kula dagaalami doonaan xukuumadda Somaliland ayaa haddana waxa laga dareemayaa dardarta ay ka wadaan deegaankaasi, waxaana laga cabsi qabaa in gacan saar hoose ay la yeeshaan jabhadda Korneel Caare ee ka dagaalanta gobolada bariga Somaliland. sida xogta aan ku helnay, jabhadan ayaa waxay daba socotaa jabhad kale oo horey kaga jirtay gobolka Awdal taas oo uu hogaamin jiray Suldaan Wabar. jabhadii Suldaan Wabar ayaa iyaduna waxa la sheegayaa in hadda ay ku sugan yihiin deegaanka u dhow xuduudda gobolka Awdal ee Harawo, halkaas oo iyaguna ay ka wadaan rogaal celin xoogan oo ay dib ugu bilaabayaan dagaalkii ay kula jireen Somaliland. dhinaca kale, taliyaha qaybta gobolka Awdal gaashaanle sare Axmed Maxamed Guutaale ayaa kulan looga hadlayay arrimaha ammaanka gobolka Awdal waxa uu la yeeshay odayaasha dhaqanka iyo guddiga wanaag farista, waxaana kulankaasi uu ka sheegay in xaaladda ammaanka gobolku ay tahay mid hadda maraysa meel xasaasiya. taliyaha oo amray in qaar ka mid ah suxufiyiinta dibadda looga saaro howlka shirka, isla markaana intii kale ee ku sugnayd goobta lagu amray in ay damiyaan dhammaan qalabka isgaarsiinta iyo kuwa wax lagu duubo, waxaana uu xaqiijiyay in cabsi ay ka qabaan in jabhado badani ay ka dilaacaan gobolka Awdal oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka soo ifbaxayeen rabshado ka dhan ah amniga. arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli ay gobolka Awdal ka taagan yihiin xiisad colaadeed oo u dhaxaysa laba beelood oo ka soo kala jeeda beelaha Samaroon iyo Ciise.